الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحية طبناد يا كتاب كان تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله قيبتي مقع أيام كجرنا waxaa kamida waxyaabaha magacaas la xiriira wax kunyo la yidhaha kunyadu waa abu hebel ama ummu hebel waxa la yidhaahdo oo kale marka kunyadaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa xadiis saxiixa ka sugan Anas bin Malik uu leeyahay rasuulku wuxuu dadka kan ugu akhlaaq wanaagsan wiil yar baa jiray buu ila dhashay Abu Umayr baa la oran jiray kunyadaas loo sameeyay wiil yar ah rasuulku markuu noo yimaado wuxuu oran jiray ya Aba Umayr ma facala nuqayr Aba Umayr oo shimbirkaagi muxuu sameeyay Anas naftiisa waxaa kunyo looga dhigi jiray Abi Hamza waagi hore waxaa iska banaan baa qofka xitaa ilmo uusan dhalin in kunyo looga dhigo sida Abu Bakar oo kale Abu Bakar ma dhalin baa leeyahay wiil oo Bakar la yiraahdo ma dhalin haddana Abu Bakar baa la oran jiray Khalid bin Walid oo kale Abu Sulaiman baa la oran jiray mana dhalin wiil magacaas leh kelimada marka waxa la yiraahdo kunyadu waxay tusisaa wuxuga weynaan iyo qofka ixtiraam carabtu aad ba u qiimeeyaan qofka xitaa magaciisa ma sheegaan Abu Hebel bay iska xitaa deena garanay Abu Muhammad iyo iska dhahan waxaa kamid oo kale waxyaabaha magaca la xiriira magaca aabaha ayaa ilmaha loogu magac bixiyaa oo de waa kan abtirku uu marayo aabaha hooyada lama raaciyo fulaan ibnu fulaan baa la yiraahdaa udcuuhum li aabaa'ihim wa aqsadu inda Allah marka ilmuhu hooyadii wuxuu ka raacaa xagga xorriyada haday hooyadu xorta ilmuhu xornimadu ku raacaa haday adoonta adoonnimadu ku raacaa aabahana xagga nasabka iyo magacu ku raacaa xagga diintana labada waalid mid ka fiican buu ilmuhu raacaa Imam Bukhari wuxuu wariyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii loo dhalay wiilkii Ibrahim wuxuu yiri waxa la dhalay caawa wiil waxaan u bixiyay Ibrahim ayaan u bixiyay waxaa su'aal kale iyaduna iimaanaysa in qofka magaca nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam loo bixiyo haddana kunyadiisa Abu Qasim loo bixiyo Abu Qasim iyo Muhammad magacaas oo rasuulka ay isku mid labadaba ka yihiin nahyi baa ku soo aroor rasuulku wuxuu magacayga isku magacaaba laakiin kunyadayda ha isku magacaabina taasoo loo badiyay intii rasuulku uu noolaa inaan qofka kunyadii iyo magacii qof Muhammad la yiraahdo haddana Abu Qasim uusan qaadan karin inkastoo la leeyahay way iska banaantahay aimada qaar ay ka doodayaan haddana waxay u badan tahay waagi rasuulka noloshiisii yaa arrintaas ku haboon in la yiraahdo labada la isku madari jirin waxaa kale oo banaan qofka magac wax ka badan in loo bixiyo iyadoo iska banaantahay Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu 5 magac u lahaa Muhammad baa la oran jiray Ahmed baa la oran jiray Abul Maahi baa la oran jiray waana midka Ilaahay subhanahu wa ta'ala maahi uu ku tirtiray kufriga iyo gaalnimadu ku tirtiray Xaashir baa la oran jiray wuxuu yiri waa midka isagana dadka waa la soo xashirin doona cala qadamay aniga gumadahayga lagu soo xashirin doona Caaqib baa la oran jiray waa midka uusan ka dambeeynin nabi kale uusan ka dambeeynin marka hal magac ka badan wada arteen dadka qaarada dhowr magac oo kale la yiraahdo waxaa soo gali qaybtan magaca waxyaabaha raacsan irtibaatul ismi bil musamma magaca iyo qofka waxba ka dhaxeeya walidaalika baa la yiraahdaa magac fiican ruuxa loo doorto xitaa laga bedelo haduu magac xun leeyahay waana arintii aan soo marnay qisadii Saciid ibn Musayyib awoowi markuu ku dadaalay magaciisii xuzni inuu haysto ama xaznun inuu haysto oo laga bedeli waayo aabahay baa ii bixiyay rasuulku wuxuu yiri sahal la bax sahal waa wax sahlan laakiin xazan waa wax adag weey wuxuu yiri wiilkiisii awooga uu ahaa xazuunadii waligeed nagama dhamaanin sidaasaan ku tagnay Umar bin al-Khattabna waa inay soo marnay ninkii la yiri Jamra bin Shahab la yiraahdo dhuxul oo dambaabur dhalay wuxuu yiri reerkiini wuu gubtay orad ka gaar buu yiri magacyadii Murra iyo Harbi iyo magacyadana dagaalka tusay colaad hadda inagu aynu la baxnay waxa in la bedelo ayaa loo baahan yahay nin uu xitaa mar uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam niman uu yiri kale noolisa hashan niman wada magac xun sheegtay Murra iyo Harbi iyo wuxuu yiri maya ilaa uu niya ciish la yiraahdo magaca fiican wuxuu yiri adigu ku soco buu ku yiri marka ugu dambeynta qaybtan magacyada dadka maalinta qiyaamada waxa loogu yeeri doonaa aabayaalkood Bukhari iyo Muslimna waxa ku soconaa qofka dadka balanta ka baxa isagoo yawm al-qiyamah yurfa'u li kulli qadirin liwa yani dadka balanta ka baxa
liwaa waa calan babanaya ayaa xaggiisa dambe ka muuqanaya maalinta qiyaamo. markaasaa waxaa la odhan doonaa tani waa ballanka bixi hebel hebel, marka waa fulaan ibnu fulaan hebel hebel tii sidaasa. marka in aabbaha loogu yeeri doono qof walba maalinta qiyaamo ayaa halkaana ka soconaysa. ilaahay subxaanahu watacaala hina badbaadiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum.